kadib waraysi gaar ah oo uu bixiyay gudoomiyaha Soomaaliyeed Diaspora Returnees Network mudane Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulaah ayaa waraysigiisa waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin dhismaha SDRN. Gudoomiyaha Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulaah ayaa waxa uu sheegay in baahi timid kadib ay ururkaasi sameeyeen isla markaana ururkaasi uu yahay mid u furan dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku kula sugan wadamada caalamka iyo gudaha dalka Soomaaliya. oo abbreviation ahaan loo yaqaan SDRN laakiin markii si caadi loo sheegay afka Ingiriiska lagu dhaho Soomaaliyeed Salaamulaah Network ama ururka qurba joogta dalka ku soo noqotay iyo wacyigelinta bulshada oo runtii la aasaasay sanadkii 2017 daafurkiisana waa 22 bishii 9 2017 wuxuu ahaa ujeedka ama hadafka laga lahaa isku xirka qurba joogta dalka ku soo noqonaysa iyo midayntooda awoodooda mataqaanaa iyo aqoontooda iyo hadday dhaqaale noqon lahayd oo ganacsi rabaan hadday waxbarasho rabaan hadday waxbarasho macallimiin yihiin hadday injineer yihiin hadday takhaatiir yihiin dhammaan qaybaha kala duwan ee adeega bulshada oo ay qaban karaan aqoonta u leeyihiin dibadda kala soo noqdeen. Gudoomiyaha Salaamulaah ayaa mar uu ka hadlayay arinta la xiriirta dadaalka uu qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee uu ku kala dhaxgalay isqabsiga soo kala dhaxgalay gudoonka sare ee baarlamaanka ayaa waxa uu arintaasi ku tilmaamay mid aad u wanaagsan isla markaana madaxweynuhu uu tallaabo wanaagsan qaaday. aan ugu bogaadinayna ugu mahadnaqaynaa ardaan mahay ururka SDRN oo ku hadla afka qurba joogta dalka ku soo noqotay ku hadlaya waxaan halkan ugu soo jeedinaynaa madaxweynaha mataqaanaa mas'uuliyadaasi uu qaatay oo ahayd inuu islaax ka dhex sameeyo hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka wixii jiray khaasatan baarlamaanka dhexdiisa khilaafka ka jiray in uu xal ka gaaro oo meeshaasi ay dhibaato ka dhicin arrintaas sidii loo soo xiray oo loo koobay inaan sii faafino meel aan lugaha la gelin waxay noo tahay arrin aan anagu runtii aadan u soo dhaweynayno waan ku hambalyeynayna madaxweynaha iyo mataqaanaa gudoomiyaasha labada gole baarlamaanka. dhanka kale gudoomiyaha Salaamulaah ayaa waxa uu ka hadlay arinta la xiriirta iyadoo ay nagu soo fool leedahay bishii barakeysneed ee Ramadaan in Soomaalida ku nool caalamka ay il gaar ah ku soo eegaan walaalahood kale ee Soomaalida ee ku sugan gudaha dalka si bisha barakeysan ee Ramadaan dadkaasi ay ugu gargaaraan. waa su'aal fiican bishii barakeysneed baan ugu soo aadan dadka dibadda ku nool ee Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool badan bay iska qabaan saacado waa iska dheerin waliba ajar oo u ziyaadayo xilliga ay soomiyaan waa dheeriyahay waa garan karaa laakiin way og yihiin dadka gudaha ku nool oo ehelkooda ah oo hadii jaraaday la'aantood noloshu way ku adkaan lahayd waxaan ugu baaqi lahaa muddadaas bisha barakeysan Ramadaan lagu jiro inay maaragtay naxariistoodii ay laba jibaaraan deeqihii ay soo jiri jireen iyo ka warqabkii ay eheladooda iyo dhammaan dadka liita ay ka warqabi jireen inay laba jibaaraan baan ugu baaqa khaasatan waxaa jira barnaamij la yiraahdo afure walaalka barnaamij la yiraahdo ayaa jiro UK aad loogu yaqaano caalamka dhan laga yaqaano marka waxaan ugu baaqi lahaa in nidaamkaas isaga ahaa dadkii dhalinyarada ahaa ama aqoon-yahanada ahaa ama odayaasha ahaa isku dhex jirka ahaa oo hawshaasi muddo hore u kacay inay laba jibaaraan Ramadaantan soo socoto oo mataqaanaa la afuriyo dadka masaakiinta magaaladan waxaa ku nool masaakiin aad u fara badan xaqiiqdii dad oo aad maartay u dayacana ku nool. ugu dambeyntii gudoomiyaha Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulaah ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xukuumadda federaalka Soomaaliya ee hoggaanka u hayo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ay tallaabo wanaagsan ay qaaday isla markaana wax badan ay u qabsoomeen. sidoo kale prime ministerka oo runtii hay'adiisa fulinta runtii ay shaqo muhiim ah qabatay oo meelo badan marka laga fiiriyo adeegii dibadda laga sameeyay xiriirkii khadkii mataqaanaa civil aviationka gudaha lagu soo xiriiray maalmahan badan la socon idaacadaha oo runtii ah kaalin libaax oo runtii ay golaha wasiirada ay qaateen khaasatan hoggaanka prime minister Xasan
khayre nidaamkaasi siduu maaragtay ugu dadaalay inuu dhaqan galo la fuliyo oo isagana ugu hambalyeynayna sidoo kale golaha fulinta waxaan ugu hambalyeynaynaa arrintii maaragtay cajiibka ahayd ee dhalinyarada Soomaaliyeed caalamka ku kala xirneed runtii dhibaatooyinka faraha badan ku sugnaa sidii mataqaana dalkooda dib loogu soo celiyo ugu hambalyeynayna golaha fulinta koodkii boostada qaranka oo dib loo soo celiyay oo iyadana arrin muhiim ahayd mataqaana oo dalku runtii laantiis wax badan ay ka hadlaysnaayeen waa ku qadarinaynaa maareyntii dhaqaalaha waa ugu hambalyeynayna maareyntii dhaqaalaha markii loo maareeyay iyo IMF sidii loola tacaalay waa ugu hambalyeynayna dawladda arrimaha amniga ilaa hadda intii ay ka qabato ugu hambalyeynayna Ilyas Daawud Star TV Muqdisho